بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد نور عبد واحد جوجا مقالة كسمايو مامل دولات جوبلين موضوع عنه حسابسين هاي سحر برركا بريان كسو كردي دقمدا كسمايو أما قبل كجوبada hoose gaar ahaan degmada Kismaayo iyo hareeraheeda ayada wadanka abaar baan ay ka jireen xaaladiis ay caadi ahayn kolkii hore dadka masaakiinta ay aad u liiteen xoolaha ay dhaafeen dadkii looda lahaa ama tabarta yaraa warihi ay biyaha ka gureen hadda bishii Ramadaan ay ku soo food leedahay raashinka qiimo walba saliidii burkii sokortii aad buu u kacay dadka ganacsatada inkastoo ay hore ay bakhaarada keedka ay hore ugu jireen qaarna hadda inay keensadeen laga yaabo way sii loo jibaareen marka waxaan leenahay mawduucan waxaan ugu faa'iideysanayaa inay dadku u dhimriyaan ilaahay ka cabsadaan wadankii bishii Ramadaan weeyaan bishii Ramadaan darteed ay dadku naxariistaan xoolahoodan ay dadka ay wixii ku tari karaan ku tiraan qiimaha bararkan ay wax ka dhimaan intaasaan fikirkay uu ku aadan yahay wadankana xaaladiis waa dugtiin abaar baana ka jirta ummadii magaalada ku soo qaxeen xarunka qaxootiyaal baarkii meel walba way tuuriyeen kaamo ma laga wada sameeyay intaana dadku waxay ku nool yihiin maamul degmada Kismaayo marka waxaan leeyahay dadka sixir bararka ha loo dhimriyo ha loo naxariisto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka maamulka degmada Kismaayo way balaaran yihiin dadkana baahidiis way badan tahay tuulooyinka magaalada ka baxsan hareeraheeda wadooyinka wadanka abaar baan ka jirta biilaana ka jirta baadlaana ka jirta in maartay ay hay'adaha ay wax ka qabtaan maamulka degmadan oo halka ay gacan ku yeesheen maamulka degmadan waxaan ka codsan lahayn iyo gobolka inay ganacsatada la hadlaan dadku u dhimriyaan beecan qaali ah in maartay shacab beecan qaali ah loo naxariisto xoolihi gadmi mahayaan ariga gadmi mahayo geeli oo sida oo kale looda ma gadmiso waxa gadmi lagu dhaqaaqay xoolaha geel baan geel hadda waa beec jabay xoolo fiican beec fiican ma joogaan dadkana hadda Kismaayo ku nool boqolkiiba waxay ku nool yihiin 9 xoolo way hor dadka dhaxul bay ka shaqeysan jireen dhaxushi way ka gooday beeraha lagu shaqeysan jiray beerihi ay xibaa la tagay wax gargaar dambe helaan ma jirto sunti lama siin ayixii loo xuluub buufay malaha beerihi wax loo qabtay malaha horumar lagama sameeynin gacan lagama qabanin beerihi waa laga kacay ilaa wubi waa biyo yaray oo ilaa jubooyinka ilaa hadda baarsanguuni dhaxdaan wubi beeri la tacban jiray waa laga kacay ayix sidoo u qaado ku noqday ma jirto beerihi roobka la tacban jiray ayix baa la tagay abaar baa wadanka ka jirtay loodina waa dhamaatay arina sidoo kale hadda ma gadmahayo waxa ku soo xig waxaan geelin hadda qiimihiisa oo u dhacay raashinka uu qaaloobay marka waxaan leenahay madaxweynaha iyo maamulka iyo degmadaba waxaan leenahay soonka soo socda dadka shacabka ishiis ha loo dhimriyo ha la fiiriyo hoos ha loo eego ayaan leenahay marka maamulka degmada waxaan ku celin lahayn inay ganacsatada u yeeraan ama culimada ay ka hadlaan magaalada Kismaayo masaajidada ay ka hadlaan khudbada jimcada ay ku soo qaataan sixir bararkan ay ka hadlaan dadka ribadana ilaahay ay uga cabsadaan culimadan ay ka hadasho intaasaan aad u jeclaan lahay barnaamijkan marka si fiican loo wacdi geliyo dadka wax loo dhimriyo beecan ugu qaaleynin loo naxariisto inta waxa dheer dadkii xoogsatada ahaa ee muruqmaalka ahaa ee magaalada Kismaayo ku noolaa ee guryaha dhisi jiray ama fuundi ahaa ama faryaamo ahaa amana ku shaqeysan jiray way istaageen shameedadii way qaalowday alwaaxi waa qaalowday birtii way qaalowday dadku way fadhiyaan dabka ka dansan wax shaqeynaya ma jiro muruqmaalka ma jiro dadkii jaay ka shaqeysanahay dhagax waxa kale wax rabo maray jaay dhagaxii musmaari waxa qaadanaya ma jirto
shidaalkii waa qaaloobay baabuurta iska rogayaashii soo qaadaysa way ku qaaloobeen wax walba way qaaloobeen magaalada nolosheeda dadkii wuxuu ku nool kahayna waa ku mashqaysanayaan dhuxulna waa horaab u dambaysay la shaqay dhagaxina waa soo xirnay dadkii caanaha la keeni jiray lagta kuraa laga keeni jiray ilaa buulxaaji ilaa gaajiroon ilaa beerxaani kur laga keeni jiray shidaalkii baa qaaloobay caanihii jilaal baa la galay caanihii waa yareeyeen caanaha la gadan jiray $2 bar hadda waxaa la gadanaya $4 ay naftooda waa kor bay usii kaceen shidaalkii baa qaaleeyey marka waxaan leenahay war dadka loo dhimriyo ha loo naxariisto bishii ramadaana soo socoto bulshada meel kastaba noloshu way taabatay nin walba way taabatay kismaayo hadday beer ahayd hadday bar ahayd haddii kuwii baxay ahaayeen haddii xoogsanayeen kuwii dhagax ka shaqaysanayeen kuwii xamaaliin ka shaqaysanayeen meel walba noloshu way taabatay hadda marka waxaan leenahay maamulka degmada iyo culummada ha ka hadleena barnaamijkan ha fiireen madaxweynahana shacabka ha u dhiman ha fiiriyo il naxariis ha ku fiiriyo su'aalaha su'aaliga naga dhaaf